السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول كورة وحاليه جري قف وليبا أو حالين كرو حجوين كأما هالحلالياش أذك سيدو كله كوباسة امتحان كتجاوز عقلي بقول وحي كسره وعقل بديه بس هو حاله قاعد عقلي إنه أنت سكبه حدوي هاي أو حاجة عقل لا يقانو emotional intelligent أما عقلي درينك كسر به يعني عقلي درينك مركم حوي هاي ولي ما أعرف قف أعتقانه وأدو عقل بدن ومر والبو حواي عقلي أنه قارب بس مركي هذا سيد ولا أقمع عسير قفكان ما حاجة قدر عقلي حوك هذا لكن كله ولي ما أدمك وقول عادي أنتي أتقسم ملك آخر شيء أما موقال أضاوت أما قصة لقى شيء كي أما ضبوك آخرنا إن أتقسم ذي لمرجوته وأدلق ويدو وقفكي أو ماشي يجوجن قصة حتى لقى إنه هرب دعدي أتكم مرجوته إن ده هذا اللي مكسو يستاجن وحارب لما تنا كهذا عقلي لو يقانو emotional intelligent محويها عقلي عادي أي كيوج أنا قانو وحكو شغل ليه هاي لأنك مسكحة يفكرك هلك عقلي جان ما تعن كهذا ويهاي عقلي لحريره أو مد قلبي لحريره قلبي وحالها وهويجا يكيد كدريمه الحويض دريك عقلي وأود أويا لنكرنا إن أن فهمي كرنا الحويضنا سيدو كلا أن فهمي كرنا دتك كلا وجدك أفهمين وحكي لما محيط هاي الحويضنا مركي أن فهمه إن أن حكمين كرنا دتك كلامنا مركي على دقمينه إن أن حكمين كسيدو كلا وعقلي المسؤول كأ go-aan ka qaadashadeena naf xakameynteena sidoo kale wax loo yaqaano iska warqabida nafeed self awareness la afqalaad marka muxuu faa'iido u leeyahay aqligan waxa la sameeyay tijaabooyin la sameeyay waxay cadeynayaan waxa la dhahaa aqliga IQ-ga wuxuu ku shaqo leeyahay dhanka maskaxda iyo thinking ayuu la shaqeeyaa oo aqli badnaanta waa qofka sidoo u fikirayay sidoo taas waa halka kalena marka la dhahay qofkan cawaadifadiisa way sareysaa oo aqliga muxuu naga caawinayaa sidee ku ogaan karnaa in emotional intelligent ama aqligeen cawaadifada uu sareeyo maxaas uga baahanahay maadaama qof walba hadii maanta online aad ku shaqeynaysid hadii aad meel kasta oo ku shaqeynaysid waxa laga maarmaan ah in dad aad la shaqeynaysid asxaabtaada laga soo bilaabo familka oo qoyska ilaa meel kasta mar walba maxaan ku hareeraysan dad ayaan ugu hareeraysan annagana waxa la dhahay qofka aadanaha ilaa 5,000 oo dareemood ay jirka ku dhasho gudihiisa marka sida aan u maareyn lahayn dareemadeena sidoo kale dadka kale sida aan ula dhaqmi lahayn ayuu noo wanaajinaya sidoo kale waxa jirto daraasado cadeynayo 20% in ay jaangoyn karto qofka noloshiisa iyo guulaha uu ku gaali karo caqliga uu leeyahay si maskax ahaan halka 80% ee go'aan ka qaadan karto qofka cawaadifadii aqliga cawaadifadiisa heerka uu gaarsiisan yahay marka istilmaameen inta badan waxa la dhahaa hebel waa calool jilicsan yahay hebel waa calool adag yahay maxaa laga wadaa qof calool adag iyo qof calool jilicsan maxaa laga wadaa waxa laga wadaa emotional intelligence-ga qofna waa high qofna waa low hadii aan dib ugu laabano suuratu Yusuf nabi Yusuf qisiiso kaamil ka hadlaysaa nabi Yusuf markii walaaladiis ay xumeeyeen oo godka ay ku rideen oo godka uu ka soo baxay oo gurigii waxa wasiirku ugu soo koray oo xabsiga uu galay hadana uu boqornimada noqday markii walaaladiis ay imaadeen oo walaalkii uu ka reegtay waxay ku dhaxeen haduu midkan waxade mid ka horeeyo waxa jiro nabi Yusuf muxuu sameeyay dareenkii uu qabay gudihiisa uu ku qari mana soo muuqdo maanta hadii adoo meel bulsho joogo qof uu ku dharbaaxo wax koowaad ka dhalan maxay tahay wax koowaad oo dareenkaas ka dhalan maxay tahay inaad xanaaqdo waxa ka dhalanayo oo maskaxda maxay iskeen doontaa dareenka ku dhashay waxay u bedeli doontaa ficil marka waxa rabnaa dareemada ku dhalanaya qulubteena iyo qalbiyadeena sidii aan ku fahmi lahayn laba sida dadka kala dareemadooda aan u akhrin lahayn maadaama dad ay ugu hareeraysan yihiin laxawida marka la maareynayo maxay tahay xanaaqa wali ma aragto qof xanaaqsan oo qof kale u xanaaqsan oo dadka kala dhan xanaaq kala dulacay aqliga cawaadifadu wuxuu noo tilmaamayaa hadii qof aad u xanaaqsan tahay qofkaas bis inuu xanaaqsanaato laakiin xakameynta naftaada xakameynaysa awgeed qofka la xanaaq aad kala dulici karin tusaale kale maanta markii aan soono waxaan soomi doonaa 12 saacadood gaajid weyna haysa cunadin way yeelan laakiin maxay tahay anaga waan soomana oo ilaahay u soomana saas awgeed maxaa sameeyna in nafteena aan xakameyn oo wax ayada ay rabto aan ka celino saas awgeed waxa la dhahaa emotional intelligence ama aqliga cawaadifada waa midka mas'uulka ka ah in waxyaalaha dareenka farxadeena murugadeena dadka kale inaan u naxariisano dareenka dadka kale inaan la wadaagno qof kale inaan dareemi karno ayuu mas'uul ka yahay wuxuu kale mas'uul ka yahay la habka aan la dhaqmeeno iyo in qof wax aad joogtaysid waxa la lahaa aqli badnaantaada waxay keenaysaa in kaalinta koowaad aad gasho in waxbarashada aad ku baaso laakiin ma keenayso inaad waxbarashada dhameysato waxa keenayo
emotional intelligence ka go'naansho inaad leedahay inaad ku go'naado inaad joogtaysid caqabadaha kugu soo wajah sidoo kale sida aan u xalin lahayn marka afar waxaan kusoo koobaynaa afar qodob oo lagu ogaan karo in ay sareyso cawaadifada caqligeena kow maxay tahay in aanaga dareemi karno xawayadeena dadka kalena aan dareemi karno intelligentigiisa uu sareeyo Soomaalida waxay u yaqaan qofkaas waa aqyaar macnaha maxay tahay waa qofku dareemi karo qofku naxariisanayo qof macnaha maanta ay ku fahmi karo qof sidoo kale marka uu xanaaqo awood u leh inuu xanaaqaysa xakameyn karo waa qof yaqaano waxyaalaha uu ku liito iyo waxyaalaha uu ku fiican yahay waana qof diirada saaraya waxyaalaha uu ku liito si uu sare u soo qaado marka waxaan rabnaa caqligeena cawaadifada waa wax la kubcin karo oo sare loo qaadi karo waxyaalaha sare looga qaadi karo waxaa kamid ah koo in aan anaga horta ogaano dadkan sidee ula dhaqmeynaa macnaha dadkan ugu hareeraysa sidee ula dhaqmeynaa qof walba sidee ula dhaqmeynaa hab dhaqankeena koo labo sidoo kale fiiro gaar ah u sameeyno bulshadeena sidee u dhaqantaa bulshada walba waxay leeyihiin dabeecado gooni ah ay u dhaqmaan dhanka kale in anaga lafteena qiimeyn aan ku sameeyno maxaan qabanay qofkan sidee ula dhaqmay si habla dhaqankeena uu u wanaagsanaado sidoo kale dareemaha nolosheena aan xakameyn waxa la afar qodob ayaa waxay u tahay afarta qodobka koowaad wuxuu yahay in anaga nafteena aan isbarano mid kale wuxuu yahay inaan xakameyn karno cawaadifada qaldaha self awareness iska warqabideena macnaha iska warqabtid murugaa ku dhashay marka qaar waxaa laga yaabaa moodkaada inaad xukumi karto mood maxay subax waxaa laga yaabaa inta soo kacay adoo murugaysan inaad isweydiin karto maxaa ka murugaysanahay maxaa igu dhacay marka murugadaada inaad xakameyn karto wax kastoo kugu dhaco in aad xakameyn kartid ayay ka qayb qaadanaysaa sidoo kale bulshadana aad qaadi kartid mas-uuliyadooda taas marka waxay naga caawinaysaa in anaga dhanba aan ahaano dad laba dhinac ka guuleysa